وطاي تلي سان أغنى ciidamada geesiyaasha Jubbaland oo garab ka helaya ciidamada commandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmahan howlgallay waxaad ka wadeegaana hoostaga Buule Xaaji ee deegaanada ee howlgallada aad ka fuliseen iyo howlgalka saddexda maalmood socday iyo guulihii aad gaarteen bal adoo dhageystayaasha u faahfaahinaya bal ku soo dhawow warbaahinta waan ku dhawahay warbaahinta aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin howlgalka haddaan idin faahfaahino muddo 3 maalmood socday wuxuu ka socday area oo u dhow Buule Xaaji oo waxa mataqaanaa 25 kilomitir ugu badnaan u jira howlgalkaasina si guul loogu qabsoomay oo noo soo dhamaaday hadda waan gartay saddexdii maalmood ee howlgalka aad wadeen waxaad ay ku burburiseen godad ee maleeshiyaadka argagixisada ay ku dhuumaaleysanayeen deegaanada Boqooqaha iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose howlgalladaas aad fuliseen iyo deegaanadaas ee maleeshiyaadka godadka ay ku dhuumaaleysanayeen aad ugu gasheen bal ka waran jabka aad u geysateen maleeshiyaadka argagixisada wallahi godadka aan ugu galay horta duruufo oo aad u badan baa ka muuqday oo meesha rafaad ay ku jireen kolka hore markii hawada laga duqeeyay marraba shaqada lagu bilaabay waxay sameeyeen waxa weeyaan mataqaanaa inay ka durkaan badna khasaaro badan meesha ku soo gaaray badna ayagoo dhaawaca ay meesha ka tegi waayaan waxa weeyaan mataqaanaa gaari qarax oo sidoo kale meesha yaalay oo shacabka Soomaaliyeed loo mareegay si nabadgelyo loogu qarxiyay marka rafaad fara badan baa ka muuqday annaguna si mataqaanaa dareenkanaga laga soo koobi jiray kullee وطاي ميليشيادka argagixisada waxay caadaysteen mar walba inay weerar gaadmaha ku soo qaadaan xarumaha ciidamada balse markaan waxay u muuqataa in ay ciidamada geesiyaasha Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo mar walba feejignaan muujinaya inay ka hortagayaan khatarta maleeshiyaadka argagixisada bal ka waran guulahaas iyo howlgalladaas mar walba aad sameynaysiin iyo guulaha aad ka gaarteen sidoo kale waxa ciidamada ay fashiliyeen gaari qaraxyo ay ku diyaarinayeen maleeshiyaadka argagixisada bal faahfaahin inaga sii waxa weeyaan horta dadkan dhagarqabayaal waaye markasta waxay soo maleegayaan gawaarida way walxaa qarax ka soo bixiyeen gawaarida oo noocan oo la dhaho baraadada la dhaho walxaa qarax laga soo bixiyay waxaana loo soo maleegay shacabka Soomaaliyeed gaariga meesha taagnaa halka lagu qarxiyay ayakiiba la jab soo gaarsiiya midkana shacabku isoo weyn ayakiiba khasaare soo gaarsiiyay waxa midkana meesha marka tagto madaxa kala go'an iyo waxa weeyaan mataqaanaa lafta go'an iyo waxa weeyaan khasaare aad iyo aad u ba'an oo la soo koobi karin soo gaarsiiyay gaariga qaraxa kaliya saameynta ka dhalatay marka jab xoog badan baa ka soo gaaray meesha sida ognahay waxaa lagu qaarijiyay ayaa la dhahay goobta in ka badan 50 maleeshiyaad argagixisada oo isugu jira horjoogayaal oo ku jiraan ajaanib bal inooga waran indhahaaga waxaad aragtay indhahanaga waxaan aragnay ajaanibta waan aragnay waxa mataqaanaa cadeymoodina waan inaa waxa weeyaan mataqaanaa 50 iyo 6 horjooga al-shabaab meesha lagu khaarijiyay iyo ka badan waxa weeyaan mataqaanaa marka iyo waxa ku jiray dadka oo u dhashay qolyahan u dhashay Kenyaanka iyo qolyahan oo Afghanistanka dad u dhashay ku jiray oo meesha lagu khaarijiyay oo ilaa 3 iyo 4 gaaray sidoo kale waxa howlgalka qayb ka ahaa saaxiibada caalamka oo ka taageera ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland dhanka cirka bal howlgalladaasi bal ayagana inooga waran ee duqeymaha iyo goobihii ay ka dhaceen duqeymaas in ka badan 10 duqeymood ayaa lagu warinayaa in goobta ay ka dhacday wallahi duqeynta saaxiibada caalamku si fiican bay wala shaqeeyeen meesha si fiican hawl fiican ka qabteen shaqooyin badan ka qabteen waxa weeyaan mataqaanaa duqeymaha meelaha ku dhaceen inta badan aragnay marka saaxiibada caalamku si fiican ay haween naga caawiyeen howlgalkaana gacan weyn bay ku lahaayeen hortigida mataqaanaa dhagaraha la soo mareegay waa sidee deegaanada howlgalka aad ka fuliseen saddexdii maalmood ee u dambeeyay xaaladda guud bal adoo noo sabiraya dadkan horta goobtan howlgalka laga fuliyay waxaa ku taalay dhaam biyaha ku yaalay oo la dhisay waxa mataqaanaa waqtigiisa Maxamed Siyaad Barre marka meeshan oo mana waaye dadka shacabka ahaa weelkan biyaha ay ku jiraan ee xoolaha ka cabaan way ka dhaariyeen xoolahaas meena ka cabi jirin shacabku meena ka cabi jirin ruux islaam oo ka cabi jirin ma jiro ayataa kor deganaa ma garatay aan gartay marka dadkan dareenkooda lama soo koobi karaba maadaama oo meeshii ay waxay mataqaanaa qutul daruuriga mataqaanaa ka heriyeen ay ku ambaxayeen ay xoolaha ka waraabsan lahayn ay mataqaanaa doogana lahayd saaqana lahayd ay ayaku ay ka degeen dadka dareenkooda lama soo koobi karo ilaa galabtoon bay sii socdaan ilayeen meeshii baan hadda kadib aan waxa weeyaan mataqaanaa aan u aroorina
waa tahay marka dadka dareenkooda lama soo koobi kara 100% aad iyo aad u faraxsan yihiin. maleeshiyaadka argagixisada waxay caadaysteen mar walbaba inay godadka ay qotaan oo ay ku dhuumaaleystaan godadkaas qaabdarada badan saameyn intee leeg ayaad ka soo gaartay maleeshiyaadka argagixisada godadkaas kolley saameyn aad iyo aad u badan baa kasoo gaadhay lama soo koobi kara saameyntooda dee kolley ruuxii arkay sawirana waad arkaysaan ruuxii arkay meesha timeen baana waxaan mataqaanaa markii nin walba uu sawirka arko isagaa sawiranaya saameynta kasoo gaadhay waxaan u malaynayaa dadkan ku dambeeya inayna qodanaynin baan umalay dhalinyarada maskaxda laga qalday waxaan ugu baaqaynaa wadankiina idin jecel dadkiina idin jecel bulshadiina idin jecel dhagarqabayaasha sida kuwa loo galay kuwaasi waxaa mataqaanaa maanta loo galay berri idinkana laydin gelaya marka intaan berrisaa laydin gelin iskaga soo baxa oo wadankiina xer baad usiina ku noolaada dawladda soo dhiban lahay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. bulshada deegaanka aad ku nooshahay iyo nawaaxigeeda maxaad baaqad u diraysaa ugu dambeyn? bulshada deegaanka joogta waxaan mataqaanaa waxaan u dirayaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii Jubbaland iyo garab taagan inay horumar ay ku shaqaystaan beeraha tabcadaan wax bartaan waxaa mataqaanaa kalsooni buuxda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaataan ay shabaab waxba kama qaadi karto wadankan qof kastana si xiriir loo noolaado yaan ugu baaqayaa. aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa taliya waqtigii waraysiga aadna siisay aad iyo aad umahadsan tahay. waa idinkaan badan dhammaantiin.